haddaad maanta iga tagtay maalmin maalmaha ka mid ah ayaad ii soo laaban doontaa. Iga fogow, igana dheerow, waayo waad i dayacday. Wakhtigan kuugu baahnaa sidii biyihii oo kale waan kuu haraadsanaa, adigana waad i haraad goyn weysay oo waad i dayacday. Qalbigay kuma xasuusan doono mar kale, waayo noloshayda oo dhan ayaa baabi'isay. Jacaylka aan kuu qabay wuxuu isku beddelay nacayb. Adduunka inta joogto adiga ayaan kuu necbahay. Waxaad burburisay noloshayda oo dhan, wax walba oo noloshayda ka mid ah ayaan ku siiyey. Adigana waad i xumaysay, iima aadan raxmin. Silaac iyo saxriir ayaad i gelisay, har iyo habeen ayaad i hoojisay. Ixsaan ima aadan samayn, ogow waan noolaan karaa adiga la'aanta, waayo waad i dhaawacday. Dhaawacaad ii geystay dartii waad igu oysiisay, waad igu tagtay anigoo ku jecel, weliba waad i dayacday. Maxaad jacaylka beenta ah qalbigayga ugu abuurtay? Haddaad i dayacayso, ma ogid miyaa dhaawacaad ii geysatay inaan qalbigayga xanuujinayo? Maya ma ogid xanuunka i hayo, laakiin anigaa dareemaya dhaawaca xanuunka igu hayo. Wuu i damqadaa, markaas ayaan la xanuunsadaa. Waxaan isku dayaa inaan is adkeeyo, umana adkaysan karo. Waxaan sameeya markaan waayo, gacmahayga ayaan kor u taagaa, dhibkaygana Rabbi ayaan u sheegtaa. Markaan isku dan sheeganay, daaqadihii qalbigayga aan kuu furay ayaa doorkoo idlaha iga sii daysay. Danayse miyaad tahay? Dulmi miyaad igu timid? Iyo daryeel la'aan dembi miyaan kaa galay?